بسم الله الرحمن الرحيم. أمان ضدك شرفتنا يا أخي سوي من سؤال تسمعنا معكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii aad baan u qiimaysnahay taniintan iman Kenya sida sharafta leh ee dadka Soomaaliyeed ee Kenya degan xubnaha waa jooxo iyo taageerayaashooda iyo mas'uuliyiinta Kenya iyo shacabka Kenya siday soo dhaweeyeen waxay wax aad sharaf weyn iyo diila gelinaysa oo muujinaysa runtii qiimaha ay u hayaan halganka shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku jira ay ku jireen muddada dheer. mar walba waxaa nagu soo noqota oo la yidhaahdaa Soomaali iyo ONLF. ONLF waxay u dhalatay dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya haysato inay u dhiibado xaqooda xorriyaddooda raaysa u dhimato. asalku waa kaa weeye magaca dabada lagu qorto 10 nees 20 nees waa la qori karaa laakiin mabda'a ay u jirto waxaa weeyaan qofka Soomaaliga ah ee dhulka ku nool xorriyaddiisa sharaftiisa karaamadiisa dhulkiisa khayraadkiisa iyo jiritaankiisa inay sugto. guul weyn bay naga gaadhay oo maanta maabka adduunka waan ku qorannahay. halganka asaga ONLF miyaa bilowda ma bilaabin. meelala dhulkeena markuu sheeganayay 1894 markuu Berlin warqadda u qoray wuxuu ku qoray dhulkaygii awliyaday waxaa ka mida buu yidhi xeebaha Banaadir iyo Ogaden province gobolka Ogaden waa 1894. Renal Road wuxuu ahaa ninkii Ingiriiska ah heshiiska la seexay meelala markii kala seexanaya warqadda uu saxeexay Ogaden 1945 markii wadamadii ku guuleysay dagaalkan adduunka ku wareejinayeen dhulkan Itoobiya Ogaden waxaa ku wareejinay Itoobiya yidhaahdeen. OAU-da 80-koodii markii muranki Soomaaliya Itoobiya guddiga loo saaray Numeeri madaxda u ahaa Ogaden is part of Ethiopia ay yidhaahdeen. sababta ONLF loola baxay waa walan taariikheed weeye taariikhda in la difaaco lagu raadiyo dhulka laakiin dhulka waa dhul Soomaaliyeed weeye dadkuna Soomaali weeye muran kama tahay dhulka Soomaali baa dadku Soomaali weeye magaciisa Soomaali baa la yidhaahdaa. ONLF fursadda ay heshay dowladnimada horeysa waxay 1992 waxay u bixisay dowlad deegaanka Soomaaliyeed calanka maanta ka taaganna ayadaa samaysay. marka walaalaheen dagaalka wadanka ku wadda meelaha shishe iyo ku mashquulin hafiiga shaqada aan qabanayso magacaa kama tegayno ilaa aan warqaddii lagu dhiibay aan soo celinno oo ku qasbanna inaan wadno waayo haddaanka Soomaalina Soomaali baan noo qaadanaya jamhuuriyad sharaf badan oo dowladda walaalaheena Soomaali gacan qaadata Soomaali galbeed Soomaali bari Soomaali qof Soomaali waxaa kala Soomaali baan ku qaadanaya meela ka marloo weyn. marka waa dagaal taariikheed waa dagaal halgan weyn oo la magaciisa wax kala ujeedaa malaha ONLF waa urur Soomaaliyeed weyn. intaa markaa kadib taariikhda way dheer tahay ma bilaabin dagaalkan ONLF ma bilaabin WSF ma bilaabin jeeshkii ma bilaabin Nasrullah ma bilaabin maalinkaa la dabaa ilaa maanta dhiigga Soomaali ku daadanayay. mar waxaa jirtay geeldireena iyo looladeena kala difaacaysa wala ku difaacaysa beerladeena falaari ku difaacaysa wax badan bay soo martay maalin meel bay soo tegaysaa shalay maanta meel bay taagan tahay. maanta waxay taagan tahay dadkii la qabsaday oo na haystay laftoodii maanta inay calaacalayaan bay taagan tahay. amxaarood bilowday hawshii ayay lafteeda maanta la haystaa. marka hadduu ku isbedelo horey kuu socday 30 sano u dambeeyey dagaalkii ugu kharaaraa ee dhulkaa ka dhaca ayaa dhacay. waxaa weeyaan ilaa hadda waxaa la qiyaasayaa 200,000 inay dhimataan ku dhimatay. waxaa la qiyaasayaa 30%
inay farxumeyn ka dhacdo dadkeenna gaajin wadareed in lagu dilay oo diiwaanka ay gashay oo la hayo rikoorkeeda waxaa hadda kuma mashquulay maanta waxaa taagan Ethiopia kala guur bay maraysaa kala guurka ay marayso qowmiyada ayay u kala baxday Soomaalidu waa qayb ka mid ah Oromo ayaa jirta oo ayagana aan wadaagno dhaqan iyo af iyo wax badan Afar baa jirta Maxaara jirta Tigray baa jira waxaa jira Sidaamo shalay oo heshay ismaamulkeedii Gambela Birishaangur Konso Hadiya Kafajo Kachakasho sideetan qowmiyadda Oromo xusulduubaysaa marka xusulduubkaas hadba cidda diyaarsan uba wax ka faa'iidaysa cidda diyaarsan dadka Soomaaliyeed waa la kulanaa dadyoobada Soomaaliyeed waxaana laga sugayaa dhulka Soomaalida inaan difaacno waxaana laga sugayaa xorriyad inaan keenno waxaana laga sugayaa maamulka aan la samayno laakiin magac keliya laguma samaynay jacayl waxay u baahan tahay waxaad wax gashato beenta waatu hadda muxuu ahaa xildhibaankeeni ka hadlayay xil u kala falay xil aqoonsan jira haddaan dabacdo dhulkii amaan falin oo birta geed qaadin oo aan abuurin oo aan u soo jeedin oo maalka ka ilaalin yaad goosanaysaa marka dambe Soomaalidu waa inay fahamto wax walba halgan inuu u baahan yahay oo u baahan yahay halgan hiil halgan hoo halgan naf halgan maal halgan maskaxeed waxaad la socotaan maanta taariikhaha Ethiopia soddonkiisa sano 25 sano galguur cusub baa dhacay xilligaan idiin sheegaya Soomaalidu geeska Afrikayada haysa meel walba ay sayidka ahay isbeddel baa inuu ka dhacay laba aad baa Yurub ka timid oo dhulkan guri ka soo galay maana fahmin lamaana nafsan sifacan simaana celin waana la kala qiimay waxbay soo martay dagaalkii labaad adduunka dhacay adduunka waa la isku ilkabeelay waa la kala fadhiistay Soomaali may fahmin isbeddelkaa dhacay sifacan lagama faa'iiday lixdanaayadii saas oo kale ahayd 77 90 hadda waa tuska xaqii isbeddel weyn baa geeska Afrika socda oo saameynaya Soomaaliya Kenya Ethiopia Djibouti muxuu ahaa Eritrea koonfurta Suudaan iyo dhulka Soomaaliyeed Ethiopia haysa weli Soomaaliya waxaad moodaa weli amnesia waxaa la yidhahdaa weli maqan tahay imaani ku jirto midnimadaada ma sugna ma baraarugsana waxay doonayaan urur adduunkooda isugu tegay oo halka hadda waa ku weynayay markaas qaba wiil adoon ama gabar waa ka imaanay waxaa halka wada fadhaarkaysa gabdhaha meesha wada aqoon wey aabayaasha dhulkay ku wada hoos jiraan wax ururkaasi waxaa laga doonaya wax walba inuu keeno haddana weliba la sii rifo afrikaad ka saar Soomaaliyay maanta kala guur labaad baa socda Ethiopia waa la kala qaybsanaya qolaba dhinac bay socotaa salaanka Ethiopia markii la meesha waa saaran meesha waa saa fadhinaa midnimadeeda dhaqaalaheeda nolosheeda xooggeeda kulli dhinacna waxaa weeye meel waa saa fadhinaa laakiin ilaahay wuxuu naga dhaliyay isir Soomaali la yidhaahdo sida dhulwaaga oo kale ah carbismi ciddii annaga soo faragelsan way nagu gubataa annagana waxba isuma taro isbeddelkaa ka socda Ethiopia marka OLF waxay ka mid tahay xoogagga inay wax ka injaaxaan doonayeen annagu cidna kama qaranayno waxaan goosannay dagaalka waqtigiisa adduunka maanta uu ka dhammaaday waxaa la galay qalliga iyo siyaasadda wax lagu qaadan lahaa heshiis baan dowladda Ethiopia la galnay ninka meesha haysa Abiy Ahmed wuxuu go-aan ku gaaray inuu baabi'iyo waxa lagu ixtiraay ku dejiyey jabadii buu heshiis la galay si fiican buu noo soo dhaweeyey waa ku mahadsan yahay laakiin dhaqdhaqaaqa uu ku yimid qayb baan ka hayn dhalintiisa waa in la fadanahay dhaqdhaqaaqa Ethiopia isbeddel uga dhacay oo TPLF uga carartay qayb dhibaa baan ka qaadan waxaa weeyaan isbeddelka ka dhici doonana waa ka qaadanay marti kuma noqonayno waxaa weeyaan waxa ugu yar ee Soomaaliya maanta sugaysa muxuu yahay waxaa weeyaan xorriyad baan doonaynay marka min guriga korka kor aan iska badayno waqti baan dhisan doonaa saqafkiisa aasaaskiisa hoose iyo dhaxdiisa iyo meeshii hoose inaad kitaabtuna waa aqbalayno shacabka Soomaaliya ayakatashigiisu waa muqadas weeye ismaamulkiisu waa muqadas weeye inuu ismaamulo madaxdiisa doorto arrimihiisa uu maamusho waxa guuda dadka ka dhexeeya laga wada shidaalkeena annaga iskale waan ogon lahay inaad kabon wax laga kabado haddii la laakiin waa in annaga laga tashado wey beeraheena annaga iskale magaalooyinkeena annaga iskale
إما القومية يقول سواء تتصل على ما هو الحكومة حتى كذا ما أقبله حق ما أقبله حتى الصومالي جاي مو يعرف بالوضع حاجة وحقوق على سواد وشيء ما يسوقها حاجة عندهم حقوق على إلى هذا المعاد ولا إلى شيء سواه حفرت إلى حتى يرتبوا بالقارة عاوية نقول الصوماليين وأقول نذكر عائليه هو إلا حرميه وعي خلاف حدث قبصه وعيد مضاضل يمكن ها نقول نبيه أنا واحد يعرف معي أدور بين الحاجون عفوا الحاجوننا ورموا الحاجوننا فلا اسمح لنا سما يعني واحد كل حاجوننا ولا ارتدموا وأنا حاجة أنت بس كويس كل ذلك ما في ودي ولا شيء أبتي على ذلك يدوم ولا سوي خلنا marka inaan dantooda ka wada shaqeyno oo waxay ka wada shaqeynaysaa dadka xadka jooga walaalaha si loo walaalayn lahaa sidii dantooda uga wada shaqeyn lahayd si qolaba meesha loogu xumeyn lahaa taa waa xagga dhulka weyn xagga siyaasadda annagu hadda xisbi qaran baa ka noqonay Etoobiya annagu mar walba waxaan la jeelnahay oo isku aragtiyaan noqonaynaa ciddii aaminsan shucuubtaas qolaba xaqeeda leedahay waxaan doonaynaa in la isxurmeeyo ama carabku galaama dad kuma haysano وعلماء ما يسنوا تقرأ ما يسنوا وكل بدل ما قاعد بدل أفكار كريم هيسنوا ما يسنوا لكن تيجي يعني الله ويمان أنا أسكت تيجي الله ويمان أنا أسكت هو عطيت أنا أسكت مو يعني من عند أنا أسكت قول نعم أنا أسكت لقيت أنا أسكت سل هذا أنا أسكت راسه أنا أسكت ما يقول أنا أسكت حتى كينا ونوع حديثية ولا لهن وأنا استغلي حتى ما لين معي ممكن مرة لا ما تفضل ما أنا والله نجيب المال نسوى إيمان أفريقيا ما وضعنا هاي كل شيء ما وضعنا مرة حدوري إننا نمط مركوب علينا دولة أبي أحمد ودولة جعلها هوي برايم مينستر ما جعلها وقرينا إن دولة ديسة وانتفاعنا لكن حقوق ذا سيرة وحنا ما نقراضي أوصلوا كثير وقعدت يسأل وحاولنا له قريب dadka Soomaaliyeed waxa weeyaan dadku war hadii yiraahdo waxaan arsiin oo waa laga adkaa gurigaaga hadii tiraahdo reerkayga hal iimaano wada reerkaas kale mali ummadda Soomaaliyeed waa inay ku baraarugto inay midowdo inay walaalowdo inay ogaato cidda danteeda wada inay kaaliso gacan siiso waxa weeyaan dhulkaas Soomaaliyeed iyo jabhadda waddanka xoreynta ogaadaya waa garantiiga iyo amniga shacabka Soomaaliyeed geeska Afrika ku nool weyn hadduu meesha ka baxo nabad laguma deganaanayo Kenya hadduu meesha ka baxo xamar nabad laguma deganaanayo Hargeysa nabad laguma deganaanayo Jabuuti annagu waxaanu nahay maafalsoon baanu nahay difaac baanu nahay marka hana laga ilaaliyo dibadda laga carqaladeeyo hana la kaalmeeyo duulaanka wadayna dhawcid kaleeto لكن حقنا ندفع عن حق ولا نهي ما أنت وحيلا مهديا إن تذكر سكرت أنك الذي يغنوا وبلا يتوب إلى يغنان وهذا رئيس المنطقة كيا سعرت أن يجرون دولة كيا وأنا قبل قولي إنه قتال حتى أنا سوماليا وهذا أما سوماليا دولة كيا عمل قولي إنه هاي مقر منك وقرني دولة كيا اللي يواتك وسوماليا ودولة نيبي تتوب إنه نيبي سعيه فبتيجي إلى أوسع مقرب كوي لا بيفو مع المهم أنا هاي وحيد الوصليين سياسيين كيلا هي ما تضيع يجب كي يروح بالقدة يقود ويني والله لما أنتم هذا الجوكتا وهذا الجواب هو ذا الدوي هذا خان اسمه هذا هو ذا الدوي واحد ما بين الله وكل هذين من قدرني إنا لكن اسمه إيمان هذا يسكر وأنا كيس هذا النجم هذا كهذه ما بعد إنك هي Soomaaliya ku jirta qayb kule waxa qayb kule shacabka Soomaaliyeed ee Kenya degan hadii ayaga ay tahay dalkeena inay mas'uul bilahay mas'uul marka Soomaaliya Kenya abaal weyn loo hayno sida dawladda Soomaaliya waa inay isaga lafteeda u soo dhaweeyaan u dejiyaan annaguna saas oo kale waan ilaalinayna wahaygeena karaamada wadalka Afrika wadamada ugu badan weyn waxaana keenaysaa qalbi furanta soo in talabaad waxa weeyaan halkan waxaa isugu yimid ganacsadii Soomaaliyeed waa sanadka businesska adduunka weeye haddii ganacsado xagga xoolaha geelisa nololkooda haddii la qaato xagga geelisa walaalaha halgamaya taageerada ka baahannahay
جبهتنا له واحد قتل جلسة جبهتنا كلية حق صومال ممكن كثير على كتوى جبهتنا السورية أو أنا فهمت هذا صومال حق ذلك على السورية حتى إذا تقولين إذا قلب قريب أفكار إذا كنت فاهم أقارأ أورين إذا قلب جوكسن هذا أنا معلوم أنك تعاون وين ما دورك ما غير قال لك عليه جبهتي ما كنت فاهم ما كان يعني صوت هذا لنا marka waxa waxa opportunity-kaas ay leedahay waxaan codsanaynaa ganacsatada Nairobi maalqabeenka gabdhaha shacabka badan kamid kuwa qaxootiga ah halganka hawa taageero halganku qalin buu galay siyaasad buu galay macnii waqti xabadda laga cabsanayay ma aha nina kuma oran karo Ethiopia qolo way ordaysaa qabiil walba 3 milyan bay kasoo urureen maalin xaaladu Maraykanka 3 bilood oo ku wareegay toban kun oo kasoo Soomaali ma xilmada maxaa keenay waayo way ogyihiin waxay urureen laakiin anagu ma ogin waayo la raamay ama waxay wadataa yaa meesha maray Cabdiraxmaan macna uma sameeyay Soomaaliga laakiin wuxuu ogaanayaa quwad u jirta Soomaali way ogaanay waa ururka keliya maanta jira Soomaali lagu taageero waa urur aaminsan ummadda Soomaaliyeed sharafteeda karaamadeeda wey haddii aynan taageerin waxaad ogaanaysaa halkan cycle buu leeyahay markuu kacaabo hoos aadaa maanta kan buu socdaa بإذن الله الكريم أنا قاعد أعمل ده بدل الكلام مرة صعبة مرة حتى كنت تقول ومدة الصومالية أنه حتى نعرف أن الحياة صومالية أما صوماليا نقطة أما بول لها نقطة أما قلبي لها نقطة أما نقطة هيلاني هيرشمال أما باي بقول لها نقطة أما جوجل لها نقطة أما بنادي الحياة نوضح لها نقطة حوالي بكذا كما فهم dadka ay waxay jireen caalamka soo qataan xagga meesha ku qoran sharciyada caalamiga waxa weeyaan xajira ma waxaan ku dadaalaynaa ummadda Soomaaliyeed dhaqaalaha isku xirmo inay walaalo inay midoobaan wanaagooda ka shaqeynayna waan u tagaynaa waan walaalaynayna marka la yaxanayno waan jecelnahay kulligood khilaafkooda ka qaybgelina daweyntooda ayagana sidoo kale waxaan rajaynaynaa sidoo kale inuu arko walaaladeena nahay soo sideed meel mutadawran ka Soomaaliya صدق يستاهل صدق سعر غبي هي أقول الله كأنه تطبيق ستة سوالف هو الله أنا أعرف الله سوالف كبيرة مرة صدق سوالف نقل نقالها هي سوالف بدر وسوالف المغادية المملوكة مرة قال لو تقدر سوالف وين منا كمحك له سيدا أنا يربى أنت يا حمر دوك سيدا حوصل عقب الله كسمايو بينما ممكن تكسي على كم من المراجع بينهم حمل ما تكسي مريتي مكلاي من الدولة شغالة لفظ على القراءة السكندرية جامعة كذا حيزيد ما مثلا كقاعدين مركز لا يقعد الماضي كنيسة مرونا من دوك الكلام سوالي واحد على سوالي واحد أنتم وين التواصل ما لا يقعد المرونا ما كان أنتم وين مركز ومدة الصومالية كمان الصومالية دي وين الصومالية حوالي الدنيا عشوط هذا محكومات معناها الصوماليين بالقبائل هذا كان كنيسة ومدى الصوماليين بقول كله وين ما هو عسني كله هو عسن كله يمدر المنطقة التاسع عند التاسع بيت يسويها مركع الصوماليين والعرض محفوظ ما كان حي حدث كريم من عين وحاجة رجل يسأل الصومالي وهمه ويعود الشيء اللي أراد هوية روحها هنا الأرض دينا العرب على ملك الملوك وهو وش هو تطوي مركب لا يبدأ الصومالي يبدأ العصر وين وعاقل النهي وحاول يحلق عن النهي وذلك يبدأ النواتي أمن ومضوه وقت كي وتؤالي كسو كارين النواتي وين تنزانيا بمورتين كي يوصع عمله وين يصدقون ذلك بس يوغاندا وين سكوفورت السودان إثيوبيا صومالي والضمانيك وارد كل ويك بين أيدي تهويك ما تبدأ عمره ومضوه مركز الصومالية الوقت هو مهم وإيه؟ نقال كجوجية حمد الحديث معه صومالي سوالية مذوبة معلمه كان محمود على النواب أنه نعطيه حلمتان هو بعض وزير من القطار نعطيه حلمه إذا الخليل خليل يرفع من الهدوتها تعيد أن تقوم حياة وأنا وشاهد هذه الشيء وأنا في عيدونيسا إلى دورشة صوت حتى الشهدين عضلة قلت بيسي ودجوت إذا حكم قبطه ما إذا حكم قبل سنين كراسة المفروض مريم السماء
كراسي من السماء أنا أقول تاج السماء بس وإذا أنا من عمل كنيسة السماء هذا يكون عنده شر وحرام عليه وحرام عليه والله أنا ما يستمد وأنا حنا أنا قلت أنا أساس وحاول أنه كم حوالي سنة شعب الصوماليين وحدوني إلى نواشي إلى نصصون بالأمور وحاولكم قضيات تسعود الله داو وحاي تسين صوروا قاعدين كده أو قارئ لو كنتوا بيسووا داو الحين الإمام باي تستي وحاتي مواد وداو كان يوصل جدًا تقول لي رانتي وكنت على بركة دورو وصومالي بوق قلادي كل صومالي كل كمان مري لامي مزلين بالسيء إلى حمل سبحانه وتعالى يلام يلام مساريه وكمان ما الله على الشرع هنا سبحانه وتعالى بل الصومالي اللي بيسوي بعيان وعندي سنة العكس سنة دي بدل مرة في سنة إنه يقول لكم أنا سنة كون لكن هذاك المشكلة سنة عظمات ولا سنة قبل حاجة مركي توقف بلد الشر شر يأكل بلد منه وعرف أساس كل عطيس تعلم الله عفوا ما يفعل الكلام ممكن تتواتر بيا ما يفعل وأنا مركي العالم الله يبقى بعض مركي برنامج شبكة الوجه الله قاعد يمثلكم أقول تذكر الله قاعد عدالة الله سمعيه وتولد أديك إلهش جيجا حتى لو أنا المقرن يلا بعد غير أنا سويت على ذيك صوفت معي تقولي بدور أنا أقول حاجة كذا أقول معي وها إلا دور أدور يسوفك أكيد يسوفك إلا اللي جاي على دور لي عيش عيكم حاجة اللي بيصير تقولي الشيء تقولوا مدك هنا إن شاء الله إذا واحد عليك الناس على دورنا ودوري بيران أطلع إلى وقت لما تقوم لا تقول لي باستعراض وكمان وعيين ولا لولان تولد الحكومة سوق صنايع حبط لا ما تولد إسكان إنجليز كان مقالنا اللي يراجع استعجاب بكم يكونه أنا هنا وحكومة من أنت طبعا ما يستد من يوم معي ما يعملوا فلان وهم بعدين إن تولد معنا لا يقدر عندي تولد سبع سنين معنا العقد يسوي $1,000,000 يصير والله بالبال تاقي يقولك شرط الله هذا بدك تولد لكن يسقط الله فبيا وبابينا إنه دقاميت وإذا كل سنة علمي وإذا كل سنة باهي دراكة وإذا كل سنة جدا إلى ذهب وحان سمعنا إن أمني قدر كينون حجنا إن عيدا كيها عدوا وعيدا تمرترا وقاعد يسيي هاي وحيكون في الله مهرة تدخل هدين عيدا وهي أمني قدر سبنين عيدا الباهم قرينيسا وأنا تكين إن أمني وأنا تكين إن دين تيانا إنا كيها أنا ومن مسلمان معي ذلك هو أدام المسلوين وأنا كم مقاصات إسلام كم مقاطعين مساجد شرفوا كم مقاطع تدخل إليه مدارس جديدة كبرتان أنا ودي لكم اللي أتكلم جديدة ما يسكر صار كريستايك وحنا كمان قبل أن كريستوها بصارين يعني مسجدنا بصارين لوكاس وعدو مسكي وهنا علامات لم كم مقان دي تهينا شرفتها لقن كهيجا صومالي ماشي ككينا لقن كوصل لك لوكا ويعزل كيوي معادي أنا أقول إن أفك صومالي مو بطل لقن صومالي كنا مو قاعدة لقن صومالي تعريف هذا مو لسه وحنا أقول إن ميرو وحاجرة دينتا ذلك أيضا الدفاعي معادي وين ما كان اسمه ويبابين ما غير له هو مجد جامعة وين ما كفرين بعد يدي أو إذا يكون أسمع دينتا لو بالله ما يسيني وأنت سيني إلا قلت الحرمات بجرة وأيدينتا ماشي كم بالعواتها وإذا دي يكون واحد صوبرته دين ده صوبرته يكون يصبح كبرته كأننا عن إذا نصلينا علماء ذي قرية عصبة جراحية هذا وعن كما يقول الناس اللي شيء أنه هو سما فورنا حوق جيل كيس كافريكا سياسة كيس كافريكا سامي ما كويا هل صومالي سامي ما كويا نبغى عندك عيد البكائي هذيك هو يقول لي كي هو ويست أفريقيا سنغال مياه الصومالي سافر كل هذا سنة بيجوا حق مليه وأنا كذا كلنا ولا عليه لكن سوى كان سوى ترينا وما علينا وأنسبح معنا أمورنا وأنسبح يرينا ما كسوى كان على الله ما أنسبح يرينا وأن كذا كلنا جالس أفريقيا وحكينا هاي صليك رسمية نقالهان شلال من لنا هاي ودك هاي إلا من إلا ما تقيمت مو قبسية كوي صوت شكوى ما كنت تبغي شلال كاسو يا سكنة صومالي بسكنة وين من الجو أنا بعد ما شاف كشوف 6 شهور ما نقول وقت جسني الحمري
hargeysa jooga iyo kismaayo iyo bahalka waxbaan ka siinaynaa waan ku dhisaynaa qayb baan ka gelinaynaa waan ka dhoofinaynaa marka anagu ma noqonayno keliya dad wax la sii jiray aniguna hadduu ilaahay wax na siiyo waan qaybinaynaa anaga dhinacayna waan ka qaybinaynaa sidoo kale waxaa weeyaan bini aadamku hadduu ilaahay badama kala tegaya annaga maxaaro iyo oromo iyo muxuuha iyo dambeela iyo kulli miyaa kala tegayna dhulkii baa ilaahay waa deris baanta waan ka qaybgalaynaa si loolada wada malaan laha si wax laysu qaabsan laha laakiin shardigu waa maxay in la isxumeeyo ninka aniga waxaa weeyaan gabaygii sheegay ninka aniga ninka aniga maami karo mid ma saaray soo ma macnaha haddayna xumeyn wax xumaynayn haddayna xume weynan boqol sana way socon waxaas marka xurmad iyo sharaf iyo midnimo iyo subxaanada ku baaqaynaa afrikanimo iyo walaaltinimo haddayna xumeyn wax xumaynayn waxaa kaloo jira dalal badan oo la taray dalka eritrea abaal weyn banu haynaa sida kiya wax loo tartameen wax loo tareen abaal weyn banu haynaa wanaaggeena ka qadbaleen waxaan jecelahay inay hormaraan sidoo kaleeto jabuuti marka soomaali ka hadlay jabuutina soomaali wey waa cadeen oo afarana weynadgeedi jabuutina inay baraato barwaaqooda hormarto waan jecelahay ayaga laftooda waxaa weeye ishaan ku haynaynaa wanaagooda iyo xumaada waan ka ilaalinayna ugu dambayn haddaan intaa ka gudbo waan ku soo noqonayaa mar labaad halkan waxaa fadhiya gabdhahayaga waxyaabaha soomaali burburiyo waxaa ka mid ah cadaalad darrada gabdhahayaga ku haya xaqiiq weyn odayaasha garcadka wadaadada culimada koofiyadaha waaweyn gabdhaha soomaaliyeed dalkay ku nool madaxan saarnayno cizi baan u yeelaynaa cizi baan u yeelaynaa halgankan 100 kun oo gabdhood ka badan baa dhibaato lagu gaarsiiyey caruurtii baa looga caawiray waxaa loo arkaysaa koreyaanka joogtaaga soo koriya ragga duurkii wada galay waxaa weeyaan ayagaa sidii u dhisaya dhaqanka salligiisa ayaga ah bulshada marka raba in la baabi'iyo haweenka laga baabi'iyaa marka waa inaan caafimaadkooda shaqayno sharaftooda ilaalino talada ka qayb gelino erkaan u qaadno sidoo kale da'da iyada waa weyn dhaqanka wuxuu ahaan jira odayga geedka dhiga laga dhaqaaqi jira waa inaan xanaanadooda ka shaqayno odayadiina dhalay soo halgamay waktiga geliyey waa inaan mashaariic u abuurno wey halka waxaa fadhiya halgamaa weyn oo ilaa 60 dagaalamaya oo raggiisi ka soo haray wuxuu naga istaahay waa inaan taariikhdooda ay lumin waa inaan xanaanayno wey sidoo kale caruurta waa meesha bulshada horumarkeeda mustaqbalkeed ka dhisayaan waxaan u abuuraynaa caruurta inaan u samayno mashaariic iyo horumar noloshooda wax ka bedel waxaa kaloo jira afrika curyaaminta uma tirsan qofka hadduu lug beeray hadduu il beeray hadika waxa ugu qabala dhismaha guri baa dheer baa dhisi jabayda baa la saaray wax qaada ma aha aynan waxaa weeye waxyaaba yar kasoo baradha wey waan xanaanaynayna naftoolayaashii lugaha beeray kuwa curyaamiinta ah dadka shirka gaaray taana waa qof muhiim waan gelayna ugu dambayntii